waxaan soo galay sanadka cusub ee 2021 waxaan ka soo gudubnay sanadyo fara badan kii ugu dambeeyay ahaa sanadkii hadda tagay ee 2020 haddaba sanadkan cusub ee 2021 sideed uga faa'iideysan kartaa uguna guuleysan kartaa isla markaana aad ugu gudbi kartaa sanadkan soo socday 2022 adigoo ku guuleystay sanadkan hadda cusub ee 2021 wargeyska New York Times ee ka soo baxa cariga dalka Mareykanka ayaa warbixin ay dhawaan ka sameysay sida ugu tulmoon ee uu qofku noloshiisa u maareyn karo sanadka 2021 waxa ay wareysiyo cilmiya la yeelatay xeeldheerayaal kala duwan oo soo jeediyay isbedelo fudud oo la taaban karo oo haddii uu qofku sanadka cusub la bilaabo laga yaabo in ay wax weyn ka bedelaan noloshiisa waxa ay khubaradu sheegeen in talooyinkani ay ka bilaabanayaan inuu qofku tilmaamo sida uu wanaajin karo aragtidiisa ku aadan nolosha ilaa laga soo gaadho muuqaalka guud ee qofka iyo xitaa gurigiisa iyo sida ay tahay inuu qofku u daneeyo maamulka iyo maareynta maaliyadda soo gasha qofka sida ay tahay u raacana ay si la taaban karo ugu caawinayaan inuu helo nolol ka wanaagsan tii hore oo ku dhisan maskax iyo aqoon talooyinkaas ay soo jeedinayaan wargeyska New York Times ee ka soo baxa cariga dalka Mareykanka ayaa waxa ay sheegayaan sida tan farxad ku noolow xeeldheerayaasha cilmi nafsiga iyo habdhaqanka aadanuhu waxa ay waqti badan geliyaan baadhista waxyaabaha keena in qofku noqdo mid faraxsan ama murugaysan farxaddu waxa ay saadaalisaa caafimaad iyo cimri dherer waxaana dhacda in marka la eegayo horumarka bulsho ka samaynayso arrimaha bulshada iyo guulaha ay ka gaadhayso siyaasadda guud laga eego heerka farxadeed ee dadka farxaddu ma aha wax uun mar inta uu si aan ku talagal ahayn u dhaco qofka ku abuuray farxad balse wax kasta oo wax ka bedeli kara habdhaqankaaga ama duruufaha aan fiicnayn ee kugu xeeran iyo sidoo kale wax kasta oo fududaynaya in aad xidhiidhadaada ka dhigto kuwa ku socda jid badqaba waxa uu sabab u noqdaa in naftaadu dareento raalli ahaanshiyo iyo farxad si aad farxad u hesho ka dheerow in aad si taban u fikirto marka uu fikir tabani kugu soo dhacana maskaxdaada dhaqso uga saar naftaada sida ruux aad saaxiib tihiin ula macaamil si ay kugu muuqdaan wanaageeda iyo xumaanteeduba ku dadaal jimicsiga samayso xasuus qor maalinle ah oo aad habeen kasta ama aroor horeba ku qorto shaqooyinkaaga iyo howlaha ay tahay in aad qabato iyo sida ay u kala mudan yihiin ee loo kala horreysiiyo isbar in aad qorto dhacdooyinka maalinlaha ah ee aad la kulanto arrimaha xusuus mudan noqo ruux awood badan da' kasta oo aad tahay ama si kasta aad u taabgaaban tahay oo aad isleedahay itaal badani kuguma jiro haddana naftaada u sheeg runta oo ah in ay jimicsiga awoodi karto jimicsiga jidhku waa furaha furfurnaanta xubnaha iyo oo itaalidda dhaqdhaqaaqa waxay ka hortag ama la tacaalid u tahay xanuunada wadnaha keliyaha macaanka dhiikarka iyo miisaanka jimicsigu ma aha inuu markasta culus yahay waxaa xeeldheerayaashu ina barayaan jimicsiga jidhka lagu dhisayo oo qofku samayn karo isaga oo gurigiisa jooga weliba 9 daqiiqo oo keliya ayaa ku filan inuu jimicsiyada qaarkood ku kaaftoomo in aad jimicsato 9 daqiiqo oo keliya toddobaadkiiba 3 jeer ayaa wax badan kaaga filan ku dadaal in dadka aad wada shaqaysaan aad noqotaan jiil wada guuleysta waa ay adag tahay in dadka aad wada shaqaynaysaan ay iskood u noqdaan koox wada shaqaysa oo isfahansan islana jaanqaada haddii aad tahay qof maamulaya kooxda ama talada u haya waxaad ogaataa in waajibkaaga koobaad uu yahay in aad dhisto kooxdaada shaqada shaqo wadareedku waxa ay qofka u abuuraysaa ruux shaqo jacayl iyo niyad wanaag waxa aanay kordhisaa wax soo saarka weliga shaqadaadu ha lahaato khariirad cad qor shaqooyinka aad dadka kula shaqeeya wadaagtaan kadibna ka shaqee sida ugu habboon ay isaga kaashan kartaan adiga oo og waxa kaaga xidhan iyo waxa qofka kale adiga kuu soo doonanayo caddeeya oo isla xadida seeska iyo jidka shaqadiina aad u maraysaan dejista mabaadi'da asaasiga ah iyo xeer wada shaqayneed oo aan la jabin karin nadaafadda guryaha oo laga yaabo in inagu Soomaali ahaan aan la yaabno in qormadan laguba soo hadal qaado waxa uu ka mid yahay arrimaha dunida muhiimadda ugu weyn la siiyo waa hawl aan fududayn oo haddana lagama maarmaan ah sida awgeed markasta laga fikro marka laga tago nadaafadda maalinlaha ah
ee jikada iyo hurdada badankeedu la xidhiidha. waxaa iyadana muhiim ah in qoysku uu yeesho maalin olole nadaafadeed ah oo guriga la geliyo, nadaafadda guudna laga shaqeeyo, oo meel kasta oo guriga iyo hareerihiisa ka mid ahna gacanta la saaro. wax u dhigo waqtigaaga howlgabka, maadaama uu cumrigaagu kor u socdo. haddii uu wadku daayana aanay da'du ku daynaynin oo berri ay imaanayso in aad isku qaadi kari weydo shaqadaada, waxaa muhiim ah in aad maanta oo aad shaqayso adigoo xoog ah, dakhliga ku soo gala qayb ahaan ka dhigto si aad berri marka aad talax gabto u isticmaasho. ma jiro xeerar u gaar ah sida wax loo dhigto ama cilmi lagu bartaa, sida awgeed waa qof kasta iyo kartidiisa iyo itaalkiisa. ku dadaal in aad adiga oo dakhligaaga ku salaynaya aad yeelato akoon kayd ah oo wixii aad iska goyn karto oo joogto ah, islamarkaana aan isdhimayn oo aad dhigato. berri waxaad arki iyada oo isgaadhay oo wax badan kaa caawinaysa. haddii aanad hore waxba u dhigan jirin, ku dadaal in aad sanadkan la bilowdo bil kasta mushaarkaaga ama dakhliga ku soo gala waxa aad ka jartaa 15% oo aanad ka daba tegin inta aad shaqo hayso. xitaa haddii ay kuu kalifayso in howlo aad leedahay aad u amaah degto lacag la'aan darteed. caafimaadka wadnahaaga. dunida oo dhan labada cudur ee maanta loogu dhimasho badan yahay waa wadna xanuun iyo dhiig furan maskaxda ah. waa laba xanuun oo soo boodo ah, daweyntooduna ay adag tahay. laakiin warka fiicani waxa uu yahay in labadan cudurba 80% laga hortagi karo. talada koowaad ee aad kaga hortagi kartaa waa in aad wax badan ka beddesho qaabnololeedkaaga. waxaa jira ficilo fudud oo haddana si weyn kaaga caawinaya in aad ka hortagto xanuunada, waxaana ka mid ah jimicsiga joogtada ah, cunto caafimaadka u fiican cun, adiga oo kala tashanaya dhakhtarka iyo bahda caafimaadka. ku dadaal in dhiiggaagu aanu kicin, xitaa haddii aad dhiigkar leedahay. ku ilaali xadka saxda ah ee aanu kicin. la dagaalan kolestaroolka iyo dufanka dhibaatada keena. macaankaaga joogto u cabir, kana dheerow sonkorta iyo macmacaanka. miisaanka saayidka ah iska rid oo ka dagaalan inuu kordho. haddii aad sigaar nuug tahay, dhaqso iskaga daa. dhar iibsiga. xaragada iyo nadaafadda jidhka iyo dharkuba waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha nafta raaxada iyo kalsoonida ku abuura. in aad mar kasta maro fiican iibsataa waa ay fiican tahay, waxaase kasii fiican in marada aad hore u iibsatay aad daryeesho. shay kasta oo aad iibsato waa in aad akhrido warqadda ku dhajisan ee sheegaysa qaabka ugu habboon ee ay tahay in loo maydho, nooca kaawiyadda ee la mariyo, sida loo kaydinayo iyo wixii la mida. arrimahani waxay si weyn u caawinayaan in shayga jiritaankiisu dheeraado iyo in aanu midab doorsoon iyo isbeddelka leh ku iman, isagoo weli isticmaalkiisu fiican yahay. xeeldharayaasha arrimahani ka faallooda waxa ay soo jeediyaan talooyin muhiim ah oo ay tahay in la raaco. dharka inta isku midabka ah uun hal mar wada maydh, oo kuwa kala midabka ahna israaci. biyaha qabow ayaa u fiican dhardhaqista. dooro saabuun ama shaamboo tayo leh oo aad dharka ku maydho. si dhibirsan u marooji marada aad maydhayso. intii aad awoodi karto ka dheerow in dharka aad ku qallajiso mishiinka qallajiya dharka. kaawiyadda oo miga lagu kulayliyo ayaa ugu fiican dharka kaawiyadooda.